صوت دقيقة معي تبغى صوت صفي من خطر رأس قديم مان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيار تشرفت له خير فيسبوك كسر دواذا وحائدين كل ديار سنقلبت ماشن أرضدي أما علمدي وحكب لنا يسي جامعة راف انترناشنال يونيفرسيتي عالمية oo idinku diyaarsan galabta halkan inay kelmado idinka soo jeediyaan insha Allah taala ku saabsan waxbarashada iyo wixii insha Allah taala kale Ilaahay nagala kulmiyo aad u soo dhawaada aad baan idin soo dhameynaya dhamaantiin waxaan ku soo dhaweynayaa halkan dhamaan khiyaarta sharafta leh ee meeshan maanta martida inoogu ah waxaa ka mid ah Mr. Usman oo isagu sanadii afraad ee jaamacadda diyaarin haya kulliyada shariica islaamiga kulliyada shariica iyo daraasaat islaamiga oo insha Allah sanadkii ugu dambeeyay ku jira Sheikh Abdul Latif oo isaguna sanadkii labaad kulliyada shariica iyo daraasaat islaamiga ku jira Sheikh Sahal Siyaad oo isaguna sanadkii labaad كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة راف كجرة انتاس أيامانت مرتين هو برنامجك إن شاء الله تعالى هنا إيجان وحي براروجين إنه هيان أنكسو قدونا مركا وهو الرئيس وحنكسو دوين إياه أنا كوب بلا شعب الليف شيخ عبد اللطيف أيام كوب بالله بينا إن شاء الله تعالى كسو دو شيخ عبد اللطيف خيارات شرفت لك وداونا يسي وحي أدورن لهايد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد دمان والسلام يا ولا لها نداونا يا بانو سلام يا وحنقول السلام يا سلام الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaheenna Soomaaliyeed ee daawanaya aad baan idin soo dhaweynaa wixii wacdiya waxa aan soo jeedin doona walaalaha aniga iga dambeyn doona anigu waxaan ku bilaabayaa aayad quraan iyo xadiis midna ku bilaabay idin soo jeedin maayo wax wacdiya laakiin waxaan idinku hambalyeynayaa taaj sharafeed idin saaran madaxa idin saaran oo ay idin saareen culimada Soomaaliyeed kuwooda hadda jooga iyo kuwoodii hore taaj sharafeedkaas waxaan ku cadeyn doonaa tusaalooyin dhowr ah annagu hadaan nahay ardada jaamacadda Raaf gata waxaan ala dhigta jaamacadda ummad kala duwan oo wadamo kala duwan ka soo jeeda waxaa ka mid ah wadanka Kenya Tanzania Rwanda Burundi Rwanda Ethiopia iyo wadamo kale oo badan baa ka mid ah ummadaas nala dhigata meesha ummadda ardadaas jaamacadda dhigata dadka cilmiga lagu tiriyo ee meeshaas cilmi la bidaa waa ardada Soomaaliyeed ummadaas kala duwan ee wadamada ka soo kala jeeda ardadaas ka soo jeeda mid walba isaga ka mid ah ardadaas ka mid ah wuxuu haminayaa ama doonayaa ama jecel yahay inuu barto luqadda Soomaaliga maxaa yeelay sharafta iyo macnaha waxaas waxa inoo soo jiiday in luqadeena la jecelaado culimadeena Soomaaliyeed kuwooda hore iyo kuwooda hadda jooga maxaa yeelay fanni diinta islaamka ka mid ah ma jiro ilaa culimadeenu way duubeen
qofka Soomaaligaana wuxuu awoodaa isagoo gurigiisa jooga sariirtiisa jiifa inuu diintii barto tu mobilkiisa iyo xariga dhagaha iyo kitaabkiisa soo qaato kaligiisa soo qolkiisa intuu galo saas uu awoodaa waxa intaas oo muhiim ah ka shaqeeyayna waxa weeye waa culumadeena Soomaaliyeed taas waa mid kamid ah taajkaas ummadda Soomaaliyeed u saaran iyo sharafta loo aqoonsan yahay tusaalaha labaad waxa weeye ummadda Carbeed baa inagu waxaan bidnaa diinta inay baalkii naga fiican yihiin iyo ku dhaqankeeda diintuna xagga Carabta inoo ka timid yaan bidnaa ayaguna markaad fiirisid ama YouTube-ka ama meelaha baraha baalkii bulshada waxa ay ku wacdiyaan gabdhahooda ama ragooda inay noqdaan diinta ugu dhaqmaan sida Soomaalida gabdhaha waxay dhahaan waa inaad qaadataan sida gabdhaha Soomaaliyeed xijaabka waa inaad u xirataan taasi ku baalkii iyo ugu wacdiyaan ugu waaniyaan tusaalaha saddexaadna waxa weeye ummadda waxa baalkii Ilaahay macnaha inuu ku manaystay waxa ugu weyn ugu baalkii ugu weyn shay kastana ka khayr badan waa Quraanka Quraanka tira koob la qaaday 2016 oo lagu sameeyay dadka xufaadda ummadaha macnaha Quraanka xifdisan kaalinta koobaad waxa qaatay una batay xifdiga ummadda Soomaaliyeed baa qaadatay ta kale aan taa ku dareeyay waxa weeye qiraa'adka jira macnaha Quraanka waxa weeye waa qiraa'ad 10 liya qiraa'adka 10 weey qiraa'adkaas cidda ugu haysata ugu aqoonsan ugu idqaansan loo aqoonsaday waa qaari Soomaaliyeed waxaana weeye qaariga liyaahdo Cabdirashiid Ali Suufi xafidahullah dhamaantiina waad garanaysaa waa taqaanaa tusaalaha saddexaad ama afraad aan raacinayo waxa weeye inagu waxa inoo khaas ah wax la yiraahdo Quraanka marka aan ku xifdino dugsi waynu ka bilownaa dugsigaasna markaynu ku barano waxyaalaha macnaha xifdiga inaan Quraanka ugu xifdi badnaano inuu ku caawiyo waxa ka mid ah waxa la yiraahdo waynu soo marnay dhamaantiin aad garanaysaan subac subacaas waxa la khaas ah ummad kale taqaana ma jirto waa baalkii waa ikhtiraacad iyo daa ay la yimaadeen Soomaalidu culimada Soomaaliyeed ay keeneen Carabtii waxay hadda ku dadaalayaan inay bartaan subac Quraanka inay ku subciyaan waxaadna arkaysaa iyagoo dhahaya Quraanka waxaan muraajaceynaa ama ku subcinaynaa sida Soomaalida haddaad rabtaan waad geli kartaan YouTube-ka aad ka baari kartaan aan Soomaali kaliya ku qoraysaa kabacdina waa ku soo bixi doona ama subac aad ku qoraysaa waxyaalahaas oo dhan aan ka soo hadlay waa sharaf ummadda Soomaaliyeed taaj u saaran weeye qoorta saan awal hor sheegay taajkaas iyo sharaftaasna waxa inoo keenay ummadda waxa keenay culimadeena Soomaaliyeed baa keentay midda aan anigu waxa soo dhan uga soo hadlay waxa weeye inaad taajka sharafta inaydan iska tuurin aad xagsataan ilaalsataan oo jiilka dambe oo imaanaya ee Soomaaliyeed inaad taajkaas ku wareejisaan oo uga tagtaan taas weeytaan idin kula dardaarmayo dhamaantiin daawadayaasha Soomaaliyeed waan ku faraxsanahay qof kasta Soomaaliya waxa uu helo ama adduunyo ha noqoto ama aakhiro ama cilmi ha noqotee aad baan ugu faraxnaa wallahi waxaan ka naxanaa dhibkii Soomaali soo gaaray ama diiniga ha soo gaaro ama dunyaha u soo gaaray waa ka naxanaa waxaan ku dadaalay macna idin kala dardaarmaya oo meeshan dardaarankaygu uu yahay inaad ilaalsataan taajka sharafta idin saaran tunka ama madaxa idin saaran waxaan uga baxayaa hadalka waan dheereeyay inta ka badan markii inaan hadlo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ عبد اللطيف آد يا آد بعد ما تنتهي إلهي كا أجرسيو ميزان كا حسناتك آخرا إلهي سبحانه وتعالى هكو صارو وانا ذا وناكسن ونسو تشيدسي
ee ku saabsan ummadda Soomaaliyeed faa'iidadeeda adduunyo iyo aakhiro waxay ku jirto inay uga faa'iideystaan. waxaan ku soo dhaweynayaa mar kale Sheekh Cuthmaan oo saan idin sheegay diyaarin haya jaamacadda Raaf ka diyaarin haya kulliyada shariica oo daraasaad islaamiya sanadii afraad ayaan ku soo dhaweynaya isaguna kalmahayna yiraahdo waadna soo wada dhamaanaysaan dhamaantiin ikhtiyaarta ku jirta soo dhawaada Sheekh Cuthmaan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام قداش يدا وحن سلام يا أمة الصومالية وطن ملك سيدوني ديك الجوكتن. أنيقو أحمد عيدة اسمان عبد الله حسن هنا كميدا أرضي دا جامعة دراف ديكتا سيدو ولالكي شيخ أحمد بشيغي waxaan marka koowaad u mahadcelinaa taariikhda yar oo noo faahfaahiyay walaalkay Sheekh Cabdiladiif Ilaahay khayraasi subhanahu wa ta'ala. waxaan rabaa wax yar kelmad yar oo ah ku saabsan adduunyada inaan ummadda Soomaaliyeed qiimaha ay leedahay ama giidnaanta ay qabtay inaan ummadda Soomaaliyeed wax yar ugu faa'iideeyo. taas Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayada badan uga hadlay adduunyada inay mid hoose tahay aakharana wax meel loo bardhiga aysan jirin. adduunyada Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu dhahay wamal hayaatu dunya illa mataa'ul ghurur. wuxuu adduunyo ma aha ilaa waa cusgeeriya markuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka soo hadlay nafkaas inay geeri dhiminayso oo haddii geerida markay dhimin sababta ay nafafka geeridu dhiminayno waxa kamid ah sidii loo abaal marin lahaa qofkaas adduunka wuxuu ku shaqeystaa oo aakhara uu wixii amal ah ee wanaagsana ee la amray uu u sameeyay wixii laga reebay inuu haray saadarteed adduunyadan qiimo ma laha واتي نبينا صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة الدنيا وامد معان وانا عقارا وحوده وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون إلهي وحفيرنا يا أدويدا إذن كي يخالف إذن كي يلي سيدات كسامين نسان وحو نبيك كودا بديك واتقوا الدنيا واتقوا النساء ورا الدنيا اسكيل عليا آخران هوين كان اسكيل عليا adduunyada waxa way sida socotid ee aad u raadinaysid dad adduunyada tarigeed ayaa markii dambe ay moodka kugu imaanaya adigoon ba wax amal ah Ilaahay agtiisa aan wax badan ka sameeynin saadarteed waxa loo baahan yahay qofka soo muslima inuu aakhirada fiiriyo waqti dheerna siiyo adduunyadan diiditaankeedana aysan ku noqonin sidii shabeel waraaba ay loo daba oo kale ku dhacay oo kale سادرتت واتي نبينا صلى الله عليه وسلم الدنيا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء هذه الدنيا أولى دجنان هاد جرب كنيعة نقال كوبي إلهي موسى كورابين له هذا بس سبب قال هذا اللي يقول نعمية أي أبر واقيسين أن وجدنا ما أنت وحيت هاي وإلهي أكيس وحن قيمك له وعكر النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر الدنيا وحبس كمؤمنك قال كان جنة وته وهي علماء دهن وهي حبس وته مؤمنك إلهي سبحانه وتعالى وحو كريبين وكهريا وحو فرين وفرين سادرتد وحبس وكجرا أما نينك قال كمركي الله فيريا راحذان إيا الدون كان وجوغا آخر مركا الله فير عذابتي إلهي وحي كهري حدا أيو جنة كجرا سادرتد wax qiimo la ma aha qofka soo muslima waxa loo baahan yahay inuu san adduunyada sin saadarteed nabigeena waxa ka sugnaa sallallahu alayhi wasallam xadiis ibn Hibban barinay wuxuu dhahay inna allaha yubqidu kullu ja'dariyin jawadin sakhabin fil aswaqi jifatan bil layli himarin bin nahari alimin bi amri dunya jahilin bi amri al akhirah aw kama qala nabiyul mustafa sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay ilaahay wuxuu necab yahay mid ka soo madax adag oo baqiil ah بخيل ما فيعنا ما حدقنا حلول جدا قفك أنا مسكحة أذك دك مسلمين تا أو قلف سن أنا أودن قنين وحسلوا لجدا وحكر النبي وكسي في بخيل لما أنا وحفي عن ما قفك مسلم كحلول بهنيا إنه إلهي سبحانه وتعالى وحسيه ولا له مسلمين تو دباتي سن إنه وحو تروح وتركر حلو كلاس النبي قد جيفة بالليل habeenkii hurdo badan maalintiina suuqtaha ku qayliyo fadhi ku dir fadhiyo qayli wax kala aan dantiiseenon ilaahay cibaadada uu tira galay waqtigiisa aan ka faa'iideysanay waxa kale oo dhahay adduunyada markii la sheego uu yaqaana
khibrad ayuu u leeyahay sidii loo shaqaysan lahaa sidii loo siyaasad looga hadla wax kasta oo dhan uu yaqaana laakiin wuxuu dhahay aakhara waxba kama yaqaana سادرت إلهي بعد يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون قالوا وحي قانا الدنيا مقال كذا آخرنا ويك غافلين هذا بصفات كاس أوردان إن آخرا موجاتين الدون أن وهذا كل سيسد وماشى كوجحون قفك مسلم كصفاتك أو قالوا الويا قانواي سادرت قفك صو مسلم إلهي كبق سبحانه وتعالى آخر ذانا فير سادرت ميدان سبب قار إن يكون كلفت إن ذاتك مسلمين تدباتو جيستين سادرت وحيدها علماء المسلمين تقار كميدا ثلاث من كنا فيه كنا عليه سدح أرمودنكي سمي أصاي كوسو لابانيا الدنيا مركز وحلو سمينا آخر ما وحمانت وحلو سمينا والدنيا كان دوشي سانجوغنا إذا كود حول المكر والبغي إيه والنكث إنا دن مسلمين هجردامو سميسيد إن شاء الله في النوجود شيء السلام عليكم طريق صدو waxay culimadu waxay dheen salaatu man kunna fihi kunna alayhi saddex arinkii sameeyay say ku soo laabanaysa waxa way waa hagardaamada qof muslim inaad hagar u sameeyay kadib adiga ay ku soo laabanaysa si Ilaahay sheegay subhanahu wa ta'ala wala yahiqu al-makru sayyi illa bi ahli ninka soo hagardaama sameeya wax kale u sameeyna mala illa asagana sidiisa gabagabadii marka dambe ay ku soo laaban doontaa mid kale waxa way waa dulmi qofka muslimka inaad dulmisid adduunkana ku dulmisid adigoo xasuusan aakhira in laga jaazin doona ma sameeynis laakiin waxa keenay hilmaam ama qafla lagu jira in aakhira hilmaamtid saadarteeda keen ma baghyukum ala anfusikum qofka sawd dadka markuu Ilaahay yiraahdo ya ayuhan naasu dadu wax kasta wax ala dulmi sameeysan idinka idinku soo laaban doonta mid kale waxa way waa ballan burinta qofka muslimka hadii ballanka qaadid ballan sharci mid diineed ah midaan sharci ahayn hadii uu tagtid mar horeba inaad waafaqdo aad fulisimo banaanay laakiin waxa ballanta leeyahay waxa mid diinta islaamka waafaqsan qof walaal ee ballan idin waxa uu reesay Ilaahay ka qaadi subhanahu wa ta'ala si Ilaahay aan la galnay subhanahu wa ta'ala markin abuna aadam dabarkiisa aan ku sugnaanay Ilaahay alastu bi rabbikum qalu ballantina ina amirtiis qaadanayna wuxuu naga reebaan ka harayna سادرت بلانت هدي أتفيدين ويسومها ومن نكث فإنما ينكث على نفسه قفكي بلانت بريه أسألنا سيدي سكوص الله بنا يسوي حد دبات عقبك إما أما الظلم واحد دبات هذا يكوص الله بنا ولا ليال قفكس مسلم أجو آخر إن لو آدي دونه سفر كان هاي سفر ديرنا ونجاه الرية سهيد أن وذنن إن يرتهاي لسن حساب دون سادرت وحنكسو جبيني ولا ليال كلمة ده صد لما قال وإمام النبي كتاب كيسا وكشيغي من سريا مركو الدنيا كهذا إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها صفا عدا إمام النبي رحمة الله عليه إنك سقول كسلوتي الإمام الشافعي رحمة الله عليه عدا إن لله عبادا فطنا إلهي وحا أصغنا ضد الدوم عقل طلقوا الدنيا وخافوا الفتن الدنيا ويفر المكة يكبق في النظر وحي خايسته oo dadka muslimiinta ay maanta ku kadsoomeen markay ogaadeen meel la deg inaysan ahayn amalkoodii wanaagsanaa waxay ka yeesheen dooma sida darteedna ay badda u gudbeen waa dad aqli Ilaahay subhanahu wa ta'ala sida darteed walaalayaal qof kastoo muslim Ilaahay ka baq aakhiradaada xasuusna adduunyaysan kula tagin meeshan waa laga tagi doonaa Ilaahay baa la hor istaagi doonaa haddaba Ilaahay maxaad ugu jawaabi doontaa adduunkiisa ayaad heeday adduunkan ayuu ku keenay maxaad Ilaahay hortiisa la tagi doontaa waa inaad ka fikirtaa u baahantay walaalayaal saadarteed walaalayaal waxay dhahaan imaam nawawi rahmatullahi alayhi markuu ka hadlayay qofka inuu heer gaara ama wax gaara wuxuu dhahay qolkiisa waxa soo diriisan in badan ibn qayyim rahmatullahi alayhi wuxuu dhahay imaam nawawi wuxuu jiray man akala kathiran shariba kathiran ومن شرب كثيرا نام كثيرا ومن نام كثيرا خسر كثيرا جري من أكل كثيرا ننكي وح بدن عنا ورشينك إسكابادية شرب كثيرا بي بدن وعبيا ننكي ومن شرب كثيرا ننكي بي بدن عبا نام كثيرا وهرد بدنيا ننكي هرد بدن وخسر هذا وحلقة ربا سيدا هذا إن الدوين كفكير تيت كليح معه
hungurigaas la cunay inaad ka fikirto kelix maaha cabitaankaas iyo raaxadaas inaad ku jira inaad ka fikirta maaha waxaa laga rabaa diinta islaamka inaad wax u qabatid waxna baratid ninkastoo muslim ah dhulkan adiga ayaa khaliifka ah adiga lagu weydiin doonaa mas-uuliyada ku saaran mas-uuliyadaas aan ka soo wada baxno khaasatan dadka soomaalida ah waxaan jeclaan lahaa oon ku buraarujin lahaa inay noqdaan walaalo iska laxdo inay ka tagaan waxyaabaha gudahooda ninkastoo muslima ha faafini ceebta walaalkaada muslimka kale guud ahaan khaasatan dadka walaalahaada soomaaliyeed ceebtooda inaa faafisid kuma banaan waa walaalka ilma adeera leeyahay waa la wada dhashay soomaalida waxay dhahdaa ilma ficil la baray ilma ficil la baray facad lama barnayda qofka haddii ficil un la bara facad la bar waxaa la rabaa qofka muslimka inuu ahaado qof diin ku salaysan mabdigiisa oo dhan wixii kalena qabyaalada in laga taga ninkastoo muslim ah walaalka haddaad khalad ku aragtidna meeshaad ka sixi karta inaad ka saxdid si hoosena u saxdid intaas ayaan soomaalida ku baraarujinayaa ceebaha soomaalidana yaanan la dhigin facebookyada yaanan culimmadeennana ha loo duceeya meel kastay dunida ka joogaan maxaa yeelay mansab iyo sharaf waxaa noogu filan culimmadeenna intay diinta islaamka na soo gaarsiin ilaahay ka abaalmariya iyo ehelada iyo qaraabada oo dhan waxaan ilaahay ka baryaa subxaanahu wa tacaala inuu soomaalida ilaahay qalbigeeda isu soo duuma xaqdiga iyo colaytinka dhexyaal inuu ilaahay ka saara qalbigeennana ilaahay saaf inuu ka dhiga dadka muslimiinta adduunka ayay ku kala firdhisan yihiin ilaahay waxaan ka baryayaa inuu amni iyo raaxo ilaahay meel kastuu joogo inuu ilaahay ku siiya ilaahay waxaan ka baryayaa ummad soomaaliyeed anigoo diinteenna haysan inuu ilaahay la kulana subxaanahu wa tacaala qaatumadeenna inuu ilaahay noo toosay subxaanahu wa tacaala caasi waalidiin inuusan ilaahay naga dhigin subxaanahu wa tacaala dowladeennana ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo gobolada dhan dadka ka taliyo madaxda ilaahay qalbigooda soo dumo dadkii dantooda gartan ilaahay ka wada dhiga subxaanahu wa tacaala ayagana islaax dhexdooda ilaahay ha dhiga intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa kelmadayda wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ عثمان قيمك القلق هي نوسو جيديسي waan soo dhaweynayaa khiyaarta dhammaan wixii na soo wici doona insha allahu tacaala waxaan ka dhigi doonaa culimada kolkay ka baxaan mar kale waxaan ku soo dhaweynayaa sheekh sahal oo isaguna ka mid ahaa ardada ka barata jaamacadda raaf gaar ahaan kuliyatu shareeca wa daraasaat alislaamiya diyaariya oo sanadii labaad ku jira ku soo dhawow sheekh sahal falyatafadal mashkuuran الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وعلى مسلمين صومالية من كسر جوائز القانون عليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني محاضرة قيمة بدن أنا وجدي ورمضي نجا ورئيسي أيان وعبكتي سلا ترتي أنا كلمة يدو عيد هاي هذا ما محاضرة قيمة بدن أنا وجدي يا هذا الوصي عقل كل وأنا أكسر أنا وجدي كلمة يدو عيد هاي طار كوي يا هاي أنت منصب وناك الدين أنا لو شيء هاي أنا أمتي أنا أنكم مرينا أنا الدين هذا الرئيس عربتي يوم شيء الدين تبى كوسا بتي أنا كترنا أيها ما إنه كترنا أنا ما أدري أنا قارن هيك أيها نقطة إذا تدار في دم يا هاي واحد ولا يسمى بعد السكاب إذا لكن السكاب ما تيجي واحد قدي قدوا أنا قتنا واحد ولا يسمى قدوا إذا أتا هاي أنا أديك أنا خاتمت هاي ومدنا واحد ولا يسمى كذا إخواني واحد الحين سومالنا وادد لكن هذا الفرس هذا ما يضو وناقة قبطه محا أصيبي محا فرق محا إيمان كستا أغد بطا سمحي داوه لينا وحيت هاي دادارا كأن سيراي أمد الصومالية وعوان كيلا أن كهضاي وحيت هاي ففروا إلى الله ففروا إلى الله إلهي حقي سؤال عنه هل كاسي داوه كجرتا بدبادنا كجرتا وفروا إلى الله آياتها إذا مرقوا يا مقرطوا وفسرها وحوية
من فر إلى غيره لم يمتنعه نكي إلهي ما الحين حكيس وعلى وحي وكأنا يهدنا كما تبان مركي داوي وحي قلت إلهي حكيس هذا مالي كستبقى التسامح وصومالي مال فرق ولكن كله بيحي مركي مالك وقتك عزيمته تيشوفوا انت سوقفوا مسلم أو صومالي ومصيبة وي مصيبة نفسها ظلام إلهي ومدي سمك درجتي لكن مركي مصيبة دندي مركي إلى إماران أيها أصلا وقتها عقاب وقتها عقابتا أيضا أن الله دي فرع إلهي هذا كلام الله إلهي أصلا وحول لو بدل قد هذا إنما الدنيا أي لو بدل مركي عوانك يدعوه إلهي أفروا إلى الله إن لكم قدير مبين ساسي آية القرآن إخواني ففروا إلى الله ما هي تاي أنا ما أسمع مركي بسرعين مركو الشيخ أصلا ما بقدر أفسرها مركو ولاي من فر إلى غيره لم يمتنع منه وهي العلوم القاتل وهي الفر من الجهل هو كان العلم لا عرف جهل لا عرف علم لا عرف الفر من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن إلهي شيطانك طاعته لا عرف إلهي طاعته لا عرف أتوقع هيتا الشيطان قد عزيز ما هيتا وحول حلايا الشيطان كان عزيز سميه إلهي وحول الدلا شيطان قد عزيز سميه الله ضيع عنه إلهي برايا إذا هذا دامي إذا بعث مسلم كأولو الشيخ طاعة الشيطان سميه إلهي انت طاعة الشيطان كوايا وبلا شك ما أهله إلا أضاعته من الشك إلى اليقين وحيرا شك كاجي وتعرفته وإلى اليقين وعرفته وهي وحولها قف كستو صومالي انت انك علماء واصلك الى هذا الذكر ايو اثرها مسكح الكوجاي حدو حديث عن اما القران وهذا الذكر الصومالي انا يوم هذا كان ويقع منك استوى وحال لغا بايا مرك رسولك اليها بلغوا عني ولو كان آيات هدي أنا حديث هذا قانتم معناه بعد كريسو كان الإسلام كهواك يا مسلم كأنا قال لي ما كريسوي إخواني رأيت أمنا عائشة رضي الله عنها رسولك يعني عن كما الأسطورة اللهم إني أعوذ بك برضاك من سخط إلهي يوم وحنك عرض وحنك عرض الحضور هذه وعرض ينك عرض إله أنا ينك عرض أنا ينك عرض إله أنا عفسان كو عرض عفسان كعرض إله عفسان كو عرض وعقوبة ينك عرض رسولك أنا كسامي رسولك إلهي نمحيه أصلا يا قدوة الله يؤسنا ودايشنا إلهي القرآن بسم حكاية يا أيها الذين آمنوا أنتم الفقراء إلى الله جميعا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله حتى يبقى أدك آتين قد فقراء أباهنا يأتي إلهي أدك أباهنتين إلهي أدك أباهنتين وأنا إلهي حقي سأدو عرطان أدرك آيات أتانا فرق الله يرتلك آيات أمودة بقى سيبا وحكوط نقل رسولك إلهي مركي بلايا إنه عسنا كان زيارته كان جزاءه إلى الصلاة صلاة كعربي قد تستوى المسلم وحلت يا مركي أسأل واحد لبعته أسأل واحد كان إياه هو عارف مركي وكان إياه هو عارف إلهي كعديس هو عارف أنا بعيد حتى مركي اللي هي هي إمام هي حديث صحابي أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وحن بغير الرسول كده يا أنا صلح أو معنا أنا وحنا هيئتون كده مريض ولا ما يصير يعني إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي حديه وأصل نفسي شيء واحد مستوى أنا وحنك حسوسنا يا نفسي يا نقصنا يا إلى آخر الحديث معروف إخواني مركي لنا هي كفر الله ما هي تفوائد إلهي الله عرف حقيسة أقاكيس يا وحيانا الله عرف وهي فوائدها تاي وهي السبب أطهي إلى الهش إلى الله الرحمن كهرد بيس رحمة سرعش هي سبب تاي هي والفوز بالجنة والنجاة من النار هي الجنة أدورينا أنا نحله أن كل من أن كبد أنه
naartii ilaahay cadaabkiisa aan ka badbaadno haddana waxay faa'iido oo leedahay ilaahay macaasidiisa oon ka tagin oo lagu caasiyo iyo walbucdu cala shubahaat iyo waxyaabaha shubahaadka oo laga dheeraada yay ka mid tahay xubu nnaasi wacadfi calayhim qofkii muslimka ee walaalka ee islaamka hataa asaga aad soo jiidid oo qof islaamka aad soo jiidin waxa xunna uu diidahayana aada ka reebin waxa fiican uu doonayana aada siinin islaamka markaa asaga saa haddii la yeelo wuxuu noqonoo isku xiran wanaagsan isjecel dhahoo dhibaato aan ka dhicin laakiin haddii qofka walaalka aad ka fogaataa intiisa xun aad ka shaqaysaa waxa uu nacay aad ku subisaa bulshadii soomaaliyeed waxaa ku dhici tafakur iyo inay kala furato inay cadaalad dhexdeeda dhacdo yaa ku dhici waana arrimaha maanta ugu badan ee soomaalida haddaan nahay inta badan intaasoo qaarad lagu kala fakiyey aan ku kala fakanaya haddii dhibaatada weli lasii haysataan ikhwaani kelimadayda aniga ma sii dheero محاضرة يا وعد وحنوفل العلماء هذا الكذا ينوفل دار كيدنا كا أسوي وحال لا يهاي ما تصومالي ما لا تقول قلبك هذا إلهي أصوم وهي أنت رند هذا كشغين سا إلهي هذا أنت بلاي ذا كشغين سا قال هو يها إيش بس هو يجيد إلهي soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan culimadeena ugu mahadnaqaynaa qiimaha badan kelmadaha ay noo soo jeediyeen ee qaaliga ah ee dhaxalgalka ah guud ahaan haddii aan nahay ardada jaamacadda raaf kuliyatu shariica wa daraasaat alislaamiya waxaan u dardaarmaynaa waxaan hadda ka idhaahdo culimada gadaasheed ma jirto maasha allah khayr allah siiyo culimadeenna laakiin keliya waxaan rabaa inaan ku darsado intaas culimadu ayna yidhaahdeen ummadda soomaaliyeed weeye waxay la hadlayaan culimadu ummadda soomaaliyeed dhibka ugu badan ee maanta jira ee ummadda soomaaliyeed laga hadlana waa taqaanaan ummadda ilaahay meeshay joogtaba niyadooda ha isu dumo kuwa isku niyada allaha ka dhigo wax walbana wuxuu leeyahay ku talagal iyo in la raadiyuu leeyahay oo u baahan yahay midnimada iyo walaaltinimada iyo isticaylkeena wax walba ku jiraan waxaan ugu baaqaynaa ummadda soomaaliyeed oon jecelahay mar walba midnimadooda iyo diintooda iyo maxaan ku sharaftooda inay mar walba ka shaqeeyaan khiyaarta sharafta leh ciddii culimada su'aal weydiinaysa baan ku soo dhaweynaynaa insha allahu tacaala wixii haddana soo wici karana hana soo wacaan waan ku soo dhaweynaynaa soo dhawaada الجمال وصلنا ويننا سلام هذا ويلوال على في الله أنا ملايين يا واحد يا سنين علماء سؤال ويديان ما شرته أنا جالس صلاة المغرب النور إن شاء الله تعالى وأسيب بحينا خير فربنا بنسكوبنا هاي دردارن كعقيمها بدن علماء الناس والشيديان بارك الله فيهم وحرجين إن الله ويريو ومدة سوماليد أي بحنك إلى هذا نقل جلسوا مروا البوالي إنما دردارنا وحنا والي إنما شيئا لكن أنت عن كذا كان جلنا أما عن كقادرنا وحيرة وحول البنا وحا إن لا إن الدافية لكن يدل عضو بحنك إلى هذا عن دين الإسلام كشقة كل عين
marka aad iyo aad baan idin salaamaya kulligiin wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.